haysta oo mataqaana iga dambeeya waa daruurihii dugay tii ku xigtay madarmoge wixii oo dhan halkan aynu ka arki lahayn saaxiib yar soo dhawaada waa Mawlid Saam iyo muuqaal kale cusub waxaan maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa Ceeri Gaabo ama Sanaag kolba soo taqaanaan maanta waxaan safar u ahay oo aan muuqaalkeeda la wadaagi doonaa quruxda buurta Daalo waxaan la kulmay si hadda u jeedaan meeshan ama geedkan oo la oran jiray waxa fadhiisata Arweelo badanaa dadka halkan imaada ama badanaa dadka u safraya Ceeri Gaabo ragga oo dhan waxa ay saaraan dhagax waxa dhagax halka saaran ay u jeedaan waxa weeyaan rag baa saaray dumarkuna waxa saaraan caleen qoyan sida hadda u jeedaan inkastoo ragga dhagaxooda uu badan yahay oo dumarka caleentooda yar tahay Arweelo caadi ahaan waxa la yiraahdaa halkan waa halkii ugu dambeysay ee ay fadhiisan jirtay sidoo kale saaxiibayaal imika destination-kii halkan ka bilaabmaya waan socon doonaa waxaan u safri doonaa dhinaca iyo buurta Ceeri Gaabo insha Allah iyada iyo information-keedu dhameystiran ayaan soo wadaagaya muuqaalkana waxaan ku leeyahay hadii aad furtay ha xidhin saaxiibayaal wadadan imika ka dambaysa waa wadada laga soo galo buurta ama mataqaana halka ay ku dhamaato hadda imika gaarigayga wuxuu taagan yahay halkaas wadadan ka soo galnay hareeraha dhinac walba marka wadada looga baxo waxa haysta oo mataqaana iga dambeeya waa daruurihii marka waxay ka dhigan tahay maanta in anagu daruurihii dushoodii aan joogno idinku iyo dadka mataqaana daawanaya ay naga hooseeyaan sidoo kale saad u jeedaan wadadan oo kaliya ayaa soo gasha marka buurta la imanayo tan oo kaliya soo fusha dhirtana markasta wax weyn dhir green ah dhir ka duwan dhiraha kale halka carabta ay iyagu mar walba iyagu haystaan nimcada iyo barwaaqada ay haystaan dhirtan waa dhir nasiib badan waxaan is oran karayaa dhirtan iyo carabta waa isku mid waayo iyagu dhirtani barwaaqo iyo barwaaqo la'aan ba iyagu waxaan ku risaas green u yahay hadii even aan roob ku diina iyaga waxa ka badan ba dhirada ku daaysa ee daruuraha ka imanaysa runtii meeshan waxa weeyaan waa meel u fiican dalxiiska waa meel u fiican dadku inay ku soo joogo bedeshaan wala way dheer tahay magaalooyinka iyo gobolada Soomaaliland laga imanayo ay tahay magaalo mataqaana fog laakiin haddana safarkii aad soo gashay iyo meeshaad ka timid iyo inta soo socotayba waxaad ku ilaawaysaa markaad timaado wadadii aad shalay soo martay markaad meer ka timaadeen halkan ay hadda inooga muuqan lahayd wifi-gii ugu sareeyay baynu hadda ku taaganahay ee oogada cashii bay naga hooseysaa gubankii baa ku xiga xeebtii baa loo dhaadhacaya marka meer markaad ka soo dhaqaaqdeen ilaa ee to set might wadadii halkan aynu ka arki lahayn meer markaad ka timaadeen togaga aad soo marteen ilaa iyo magaaladii ugu horeysay oo Rugay tii ku xigtay madarmoge wixii oo dhan halkan aynu ka arki lahayn ciyaanta iyo roobka jira awgood baynaan arkayna inta tuulo markaynu wadada dib ula noqono karinka halkan ka soo leexanay aynu dib wadada uga bilowno karinkaynu ka bilaabaynaa ina wajiyare xire libaax waxaanu tegaynaa haddana xire mooli waxa ku xigta madarmoge Rugay baa ku sii xigta Rugay marka la dhaafo waxa ku sii xigta meesha la yiraahdo Ceel Dibir marka la dhaafo Mayd baa la tagaya Ceeri Gaabo waa magaalada ugu qabo uguna haylaansan weeyaan dhirta ka baxda hadii aan inta aan anigu garanayo waxa kamid ah dibka ugu weyn oo ay Ceeri Gaabo waqtigii hore waxa ku ooli jirtay warshadii qoriga ee Soomaaliya ku ooli jirtay sababtana waxa koosgareeyay buurta oo waayo tana laga jiri jiray qoriga waliba geedka dibka la yiraahdo ha ugu weynaado kaaba ha ahaado
ها كاها هذا أما كان كويس يرن كويس وين مرضى سينان قلي كرين أي كويالان وحكو حاجة السوق ذي وحكو حاجة تحيرمتكي وحكو حاجة شيء وحكو حاجة مولجي دير عادي عادي ترى بدنا أين هدير سوكو بكرين أي كبحة فوحو لبو قيف سما محر مايدي بو قيف سما مايدي محركو حكو يالا جوبنك ها مايدي بيسوي واك حبكت خالق عد لويا يا ككلنا وكفوحة كبحة waxaan ku wada jawigan anigu kuma qeexi karayo eray kelmad ficil ma taqaanaa noloshayda intii aan in un meel u dalxiisayay ama aan in un meel tegayay meeshan meel ka qurux badan ma tegin meeshan waxa weeyaan jawigeedu waa jawi aad u qurux badan dadka iyo reeraha maaragtay dadka isjecel dadka isqaba reeraha 30 sano reeraha lahaa caruurahooda halkan wayna imaadaan badan dadka Soomaalidu iyagu way sadkeeyaan oo ma taqaanaa iyagu waxyaabaha ma taqaanaa nature-ka ah ee aqliyada iyo maskaxda qofka bini'aadamka u fiican waxay isleedahay hadii la weynaado waxay u arkaan wax aan macno badan sameynaynin marka dadka isqaba dadka jecel ma taqaanaa dadka iskuursan doona waxaan kula talin lahaa in halkan imaadaan buurta daala imaadaan sida sagaalka roobkan ku saamiyayo sida safar qof tagayba adunku sugaawal isalugtayaamo maynu kala salgaadhine sidee baanu qaa يا سلام معاشق qof kastoo idinkeeda ka midi كله وعنى abweeladkan ama uu cunay ama meel lagu hayo arkay badanaa waxa la yiraahdaa markii anigu aan yaraaba loo jiray abweeladku wuxuu jiraa 35 sano laakiin 35 sano oo 3 jeer la bilaaba ayuu maka joogaa مسا جير بالعاني شيء كعبتي رد كورم والله عين شيء marka laga yimaado saaxiib anigu iskuulkii waan ku cuni jiray waan ku wada cuni jiray anigu maadaama isku بربراي dhigan iskuulkii barmarigiisu kala soo الله كاميرا ما كلستي سايه هي دلعي هودو ضرورو كهورين دوغي دريمدا ملعي كاتكي ليلو تردنيان بدنا دافتشو dumarkuna ayaanta aqal dadab sanooy imika saaxiib barsaada u jeedaan halkaas waxaan ku waa daruurihii oo iga dambeeyaan ma taqaanaa hadii halkaas laga dhaco dadka magaalada ku nool waxay sheegaan in graffiti-ga cufka uu soo celinayo marka saaxiibeel waxaan tijaabin doonaa imika kaas waa loox weeyaan looxaas waxa la yiraahdaa graffiti-ga soo celinaya marka dadka magaalada ku nool iyagu waxay aaminsan yihiin even in hadii qof halkaas ka tuuro graffiti-ga soo celinayo laakiin probability qof uu halkaas kaga tuurayo ayaan dhacayninba marka imika looxaas bal tijaabinaya inuu soo noqdo iyo in kale ayaan tijaabin doonaa kaas waa loox I think inuu ma taqaanaa warqada ka adag yahay laakiin kaas bal tuuraya kulli kaas uu adkaa oo ma taqaanaa waa loox waxa marka qofku kulli ka uu ku culus yahay marka sidoo soo noqon karaya imika waxay sheegeen dad halkan joogay in hadii qofku iska tuuro uu soo noqonayo laakiin looxii yaraaba soo celin waayay runtii meeshan ma taqaanaa waa meel qalbiga u fiican waa meel niyadda u fiican waa meel qofku maskaxdiisu ay ku furfurmayso waxaan jeclaan lahaa qof kasta oo inuu jecel inuu dalxiiso ku soo dalxiiso xaafadaha iyo family-gu inay halkan imaadaan jacayladu halkan imaadaan dadka isqaba inay halkan imaadaan نحن تبنهن إيو دافن دشودنا هوي هوي sida hadda u jeedaan cadceedii waa madow oo ma taqaanaa wajiga ma muuqanayo wax taqaanaa waxa la moodaa in habeen tahay laakiin cadceedii baa halka ka muuqata maxaa la yiraahdaa marka halka ka muuqato halkaas oo kale waxa la yiraahdaa marsin baa la yiraahdaa ha marka waa marsin maxay macnaheedu maxay tahay yani marsin waxa weeyaan waa laaga halka uu isluubka ka yahay ee oogada iyo casha
yaa wey ayaa la yidhaahdaa marsin halka uu ka dheer yahay imaka magaalada halkaas ka muuqata magaceed waxaa la yidhahdaa madarmogga la yidhaahdaa marka magaaladii madarmugeen shalay toola maraynay asxaabay halkaas weeyaan markii aan meedh u soconnay wata halka ka muuqata dhulkan imaka wadooyinka mara buurahan oo dhan waxa weeyaan waa wadooyin rafa aad iyo aad haa inkastoo halkaa wadoon ay marto dadka ma taqaanaa gaalada ah sawirro cinematic oo ma taqaanaa galaan iyo meelaha ay ku galaan waxa laga yaabaa halkan inay tahay meesha Soomaalidu ku gali lahaayeen inay tahay marka halkan muuqaalkeena saaxiibeel ku soo xiri doonaa muuqaalkan ma mudnayn in intan lagu soo dhameeyo laakiin waqtiga waa naga dhacay u sii safri doonaa dhinaca ceer gaabo insha Allah muuqaalkan hadduu ku soo gaaray subscribe like share kana mid noqo asxaabta ku xidhan mar walba Mawlid Sam